Waa maxay bambada wasakhda ama dirty bomb? Toddobaadkan Ruushka ayaa marar badan sheegay in Ukraine ay isticmaali karto bambada wasakhda. Ruushka ayaa walaac ka muujiyay arrinkan. Bambada wasakhda ama dirty bomb walxaha radioactive-ka shucaaca ay gudaha ku sidato darteed waxaa la sheegaa caafimaadka in ay halis ku tahay. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, kusoo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media Tube, kaasoo aan idinkugu soo gudbino mar walba arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, difaaca, caafimaadka, teknoolojiyadda, sayniska, arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo wixii la midka ah. Haddaba dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, inta aanan u gudagalin warbixintaas oo dhammaystiran, waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalkan like saartaan, share, follow iyo subscribe dhahdaan page-ka iyo channel-ka Gaacir Media Tube ee aan ku kala leenahay YouTube-ka iyo Facebook-ka. Waa mahadsantiin. Aan ku bilowno. Toddobaadkan Ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay isticmaali karto bambada wasakhda ama dirty bomb, isla markaasina Ruushka ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin. Gaar ahaan wasiirka difaaca Ruushka ayaa yidhi sidan: Kiev dhaqdhaqaaqyada ay ku doonayso in ay ku isticmaasho bambada wasakhda dalkayagu aad buu ugu walaacsan yahay. Ukraine dhinaceeda, eedeynta Ruushka waxay ku tilmaamtay waxba kama jiraan. Sidoo kale wadamada Faransiiska, Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa eedeynta Ruushka ee Ukraine waxay isticmaali rabtaa bambada wasakhda oranaysa waxay ku tilmaameen in ay tahay waxba kama jiraan oo been cad ah. Haddaba dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, bambada wasakhda ee hadalhaynteeda warbaahinta ay qabsatay toddobaadkan waa maxay bambada wasakhda ama dirty bomb? Waxaa la sheegaa bambada wasakhda ama dirty bomb inay tahay bambo gudaha ku sidato maadada uranium-ta leh walxaha radioactive-ka shucaaca. Xilliga ay qaraxdana waxay qabsataa hawada iyadoo wasakhaysa hawada. Bambada wasakhda walxaha uranium-ta radioactive-ka gudaheeda ku jira nadiif maahan sida uranium-ta walxaha radioactive-ka ay leedahay bambada nuclear-ka, waayo uranium-ta walxaha radioactive-ka shucaaca leh ee bambada nuclear-ka waa nadiif. Ha ahaatee, bambada wasakhda waxaa si fudud loogu sameyn karaa waxaa si fudud lagu sameeyaa walxaha radioactive-ka shucaaca ee laga soo ururiyay goobaha sida cusbitaalada, goobaha soo saaro tamarta nuclear-ka, shaybaarada baaritaan ee kala duwan, iyadoo la geliyay waqti yar iyo qiimo jaban oo sameynteedu qiimo badan kuma baxo. Waxaa la sheegaa bambada wasakhda ama dirty bomb marka la ridayo in lagu xiro gaariga dhabarkiisa dambe kadibna ay qarxdo. Haddaba bambada wasakhda ama dirty bomb waxyeello noocee ah ayay u geysan kartaa caafimaadka bani'aadamka? Bambada wasakhda ama dirty bomb xilliga ay qaraxdo waxyeello weyn ay geysataa, gaar ahaan iyadoo geysanayso dhaawac aad u halis ah iyo burbur hantiyadeed. Bambada wasakhda goobta ay ku qaraxda, dadka aadka ugu dhow ama ku sugan goobtaas ma ahane waxyeello sidaas ah oo la xiriirto walxaha radioactive-ka shucaaca leh ma lahan, balse walxaha radioactive-ka ee bambada ku dhex jira qaab boor iyo qiiq ah haddii ay ugu baahdo ama ugu fido hawada, deegaanada ama goobaha ka agdhow dadka xilliga ay neefsanayaan. Haddii ay gudaha u gasho oo hawada iyada ah dadka ay qaataan, waxay dadka ku keeni kartaa halis caafimaad oo aad u ballaaran. Sidoo kale waxaa la sheegaa waxyeellada caafimaad ee ay dadku ku keeni karto bambada wasakhda ama dirty bomb inuu ka mid yahay cudurka kansarka ama kansarada. Sidaas darteed, bambada wasakhda ama dirty bomb waxaa loo arkaa in ay tahay mid lagu argagax gelinayo shacabka, balse markii ay noqoto adeegsiga hubka ma ahan mid waxtar weyn leh. Haddaba dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaa waxaa inaga eg barnaamijka wixii cusub ee wararka Gaacir Media Tube. Barnaamijka kan xiga intaan ku kulmi doono nabadiino.